qodobadii warka oo faahfaahsan aan ku bilaabay howlwadeennada cuntada dawada iyo adeega caafimaadka ee gobolka Doolo ayaa dabagal iyo kormeer baaritaan ah ku sameeyay alaabta iyo meheradaha goobaha cuntada. Wariye Bashiir Cabaase ayaa faahfaahinta warkan inoo eegaya. howlwadeennada dabagalka cunnada daawooyinka iyo adeega caafimaadka ee gobolka Doolo ayaa dabagal iyo kormeer baaritaan ah ku sameeyay alaabta meheradaha iyo goobaha cuntada si loo hubiyo tayada iyo taariikhda dhicitaankooda loona ilaaliyo badqabka bulshada si looga hortago ka ganacsiga maciishada dhacday ee waqtigeedii isticmaalka u dhaafay ayaa intii ay ku guda jireen baaritaankan waxay qabteen badeecooyin dhacay si markaasi suuqa looga saaro loona ilaaliyo badqabka caafimaadka ee bulshada. xubno isku dhafa isla markaasina uu hogaaminayay isku duwaha dabagalka cunnada daawooyinka iyo adeega caafimaadka ee gobolka Doolo ayaa waxay kaloo xasuusiyeen farmasiyada iyo xarumaha caafimaadka in la joogo waqtigii la cusboonaysiin lahaa liisamada ganacsiga ayna muhiim tahay in si degdeg ah loo cusboonaysiiyo si loo sii wado adeega sharciyeysan ee caafimaad. waxayna farmasiyada iyo xarumaha caafimaadka ka baadheen daawooyinka khatarta caafimaad leh sida kuwa dhacay expiry date-ka, kuwa maandooriyaha loo isticmaalo iyo daawooyinka dalka gudihiisa laga mamnuucay inay iska ilaaliyaan. guduwaha dabagalka cunnada daawooyinka iyo adeega caafimaadka ee gobolka Doolo mudane Cumar Sheekh Axmed ayaa warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida SRTV ugu warbixiyay. magacaygu waa Cumar Axmed Maxamed waxaan ka shaqeeyaa waxaan ahay xafiiska dabagalka daawooyinka iyo adeega caafimaadka waxaan ahay isku duwaha halkan u jooga gobolka waxaan maalmahan ka shaqeynaynay oo wadnay baaritaanka daawada cuntada iyo wax kasto ma artay bulshada ma artay dhibaato ku ah oo ah waxyaalaha la isticmaalo dadku isticmaalaan ama cosmetic ahaado ama cunto ahaado ama dawo ahaado wax kasta uu ahaado waan sameynaynaa oo waan wadnay campaign-kii annagoo isku dhafa team isku dhafa oo ah ka kooban xafiiska dabagalka cuntada daawada adeega caafimaadka xafiiska ganacsiga gaadiidka gobolka dawladda hoose shaqada marka waan wadana haddii Ilaahay yiraahdo waxaa jira waxyaalo badan oo ma aragtay la rabo in laga dagaalamo oo bulshada ma aragtay dhib ku ah sida hadda cuntada kale hadda maalmaha waxa aad u soo badanaya sonkor contraband oo soo xaroonaysa koonaha ka soo xaroonaysa sida magaalooyinka dariska ah mareedaha sonkortaas waa sonkor madow waa sonkor aad garanaysaba inay ma aragtay cabashaduna maalmaha uu soo gaarsay muddo hadda bil ah waxaan soo gaarsay cabashada sonkorta laakiin waxaan moodaa in ma aragtay koonayaasha loola dhumanayo marka sonkorta bulshada waxaan leeyahay sonkorta noocaas ah ee madow kulay dad badan way arkeen dadku waxay noo sheegeen sonkorta markii la isticmaalayo tusaale ahaan ama biyo lagu qaso yani inay wax laga arko isbedel laga arko marka dadka waxaan uga digayaa bulshada